لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا لا ليلى 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 لا. أول وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقصة قابا horeyna loo soo turjumay waxaan jeclaystay inaan ila wadaago daawasho wacan. muxuu galabsaday caruurkan أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. waxaa ka dhimatay xaaskiisii hore waxayna ka tagtay ilmo yar. markii ay dhimanaysay waxay seegeed u dardaarantay inaanu ilmaha yar dayicin ee uu daryeelkiisa u feejignaado. muddo kadib ninkii waxa uu guursaday gabar kale, carruur ayayna u dhashay. had iyo jeer wuxuu shaqada ka imaan jiray wakhti dambe, xilli horena waa uu kalihi jiray. wakhti fiican oo ilmihiisa 7 jirka maraya uu kula sheekaysto ma heli jirin. mar kastoo xaaskiisa weydiiyana waxay u sheegtaa inuu fiican yahay oo ay daryeesho. run ahaantii agoonnimada dhab tahay waa hooyola'aanta. si kastaba ha ahaatee ilmahaasi rajiga ahi kuma aysan hooyadan cusub daryeel. taasi beddelkeedana waxa uu ku noolaa hiifid iyo haaraamid joogto ah. cuntada gaar baa loo siin jiray haddii uu namar qarsoon oo gacanta ka baqsado. maalin kastoo carabka iyo habdhaqanka ayaa damiirkiisii dadnimadiisa lagu dhaawici jiray. waa galab qabow oo qaamaday dhacayso ayay xaaskii aabbihii ku xirtay barandada dambe oo guriga uu lahaa, oo had iyo jeer ay ku xabisi jirtay wiilkan yari. markuu oohin dhammaystay, gaajiyo qarqari uu jirkiisii damiin la gariiro awgeed waxa uu galay xaalad aan suuxdin waxba dhaamin. marmar ayuu maqlayaa shanqadha dibadda iyo gudaha ka imaanaysa, hase yeeshee dhaqaaq iyo dhawaq midna ma awoodo. hooyadii ayaan ka darneed ma xasuusan ilmihii yaraa ee casardheerka ciqaabahaanta ugu xidhay qoldibadeedka dusha ka bannaan ee guriga. sidaasina way ku seexatay. ma xasuusataa daryeelkii loo dardaarmay carruurkan? ma xasuusataa mas-uuliyaddii la saaray aabbaha? dhammaan waxay noqdeen dhaan dabagaalo waxba kama jiraana. amiintii waa aabihii imaan jiray yimi cashee oo iska seexay. goor saqdhaxa ah ayaa la tusay xaaskiisii hore oo ku leh inankeenii badbaadi, ammaanadii badbaadi. wuu soo booday isaga oo naxsan. xaaskiisii ayuu weydiiyey, hebel mee? waxayna ku jawaabtay, waa kaa qolkiisa hurda. shayddaanka intaa uu iska naaray buu iska seexday. mar kale ayuu ku riyooday xaaskiisii hore oo intii ku celinaysa, hebel ammaanadii u gurma oo badbaadi. mar kale ayuu soo booday oo gabadhii la hadlay, ilmihii ma hurdaa oo ma hubtaa? waxay ku tidhi, su-aashu maxay tahay? shayddaanka iska naaroo iska seexo dhib ma jiree. sidii ayuu yeelay. intaa uu shayddaanka iska naaray ayuu hurdadii ku noqday. mar saddexaad ayuu ku riyooday xaaskiisii hore oo ku leh, dayacday ammaanadii, ilaahayna ii keenay ogow. markaas ayuu booday oo aaday qolkii wiilka yari seexan jiray, balse ka waa sariirtiisii. isagoo argagaxsan ayuu ku soo noqday xaaskiisii oo ku yidhi, ma hurda ilmihii eemee? intaay naxday oo xasuusatay soo booday oo ku tidhaahday, isagoo xaggaas balagtoonka ku ciyaaray ayaan ogaaye, talow miyaanu soo gelinbaa? balagtoonka gudaha ayuu ka xirnaa. si ismaqiiq ah oo miir la ayuu aabbihii isaguna nasiibka xumaa u furay albaabkii. misna waa ilmihii yaraa uu qabow owgii tawafay, isla markaana naftii ka baxday. eedo, muxuu galabsaday canugan? muxuu dembi kaa galay carruurkan? waa ilmo yar oo aad dulmisay misna aad dishay. allow eedayaasha hagaaji.